gudida abaaraha ee beelaha arabayaan deeq biyood gaarsiiyay deegaanada waqooyiga gobolka Togdheer Marwasaare Maxamed Xuseen Basbaas oo loo soo wakiishay deeqdan biyaha ayaa ku wareejisay gudoomiyaha degmada Kalbare ee waqooyiga gobolka Togdheer waxayna baaq u dirtay gudida abaaraha ee heer qaran waxayna sheegtay in dadkaasi lala soo gaaro raashin degdeg ah waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan Marwasaare Maxamed Xuseen waxay soo wakiishay gudida abaaraha ee gurmad ee beesha arab halkan waxa taagan 6 booyadood oo biyaa oo dadka abaaraysan loo soo diray oo degmada Kalbare ay laba leedahay boorleyna laba leedahay cali saaxidna laba leeyahay gudidu waxay hore u soo dirtay wiigan hortii 5 booyadood oo midna uu ahaa baliga diiriye guuleed 5 booyadood oo baliga diiriye guuleed iyo ay soo dirtay ceesha intiiba way gaadheen waxaan ku wareejinayaa labada boorley iyo labada Kalbare gudoomiyihii degmada Kalbare oo ila taagan Abakor gudida waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin gurmadkii biyaha ee aad u soo dirteen dadka walaalihiina abaaraysan laakiin waxaan idin leenahay dadku baadiyo biyo toonna ma haystaan oo dadku gaajay ku jiraan marka waxaan idin ka codsanaynaa oo idin soo gudbinaynaa markaan dadkii aragnay baahnaa inay u baahan yihiin raashin degdeg ah marka waxaan idin ka codsanaynaa biyihii waa noo soo dirteen inaad raashin degdegana dadka u soo gaarsiisaan gudida gurmad ee abaarahana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dadkoodii xasuustay iyo dadka soo diray qaaraanka ee dibadaha ku maqan aad baan ugu mahad celinaynaa laakiin waxaan idinku adkaynaynaa maanta inaad dadkiini gurmad degdeg la soo gaadhaan raashin bay u baahan yihiin iyo biyaha way heleen raashinkana inaad degdeg ugu soo dirtaan baan ka codsanaynaa intaas ayaan waana mahadsantiin goboladan bariga iyo waqooyigana waxaan rajaynaynaa in gudida abaaraha heer qaran ee madaxweyne ku xigeenku ka yahay gudoomiyuhu inuu dadkii gaaja haysa iyo biyo la'aan ay degdeg ugu soo gurmadaan baan iyagana rajaynaynaa xukuumadda iyo gudidana waanu mahad celinaynaa iyagana waanu sugaynaa laakiin waxa ka soo horeeyay gudidii gurmad ee ay dadkan markii ay dhawaaqa ay bixiyeen tiifiyada laga daawaday u soo gurmaday ayaa iminka 6 booyadood iyo 5 booyadood oo hore 12 booyadood gudida abaaraha ee gurmad ee beesha arab ayaa u soo dirtay iyagana waxaan leenahay raashin degdeg ah dadkiin deyle dhaqaalaha waxa laga soo gurayaa un dadkii loo qayladaan diray dadka raashin ugu soo dara raashinkii baa ka maqan gudoomiyaha degmada Kalbare Abakor ayaa u mahadnaqay gudida abaaraha ee gurmad waxaanu baaq u diray xukuumadda Soomaaliland iyo cid kasta oo ka hawlan taakuleenta dadka abaaruhu haystaan deegaanada Soomaaliland 6 booyadood aan ka hadno Sare Maxamed Xuseen oo soo direen gudida gurmad 6 booyadood imkaan u dirayna 4 booyadood hore waan soo gaareen 5 booyadood hore waan soo gaareen waxaan ka codsanaynaa dadkii xoolihii way ka jirceen lagana iibsan maayo biyo la'aantuna intaasoo qura maaha haddaan lahayn roobka keenin way sii dheeraanaysaa dad maanta oo jilicsan oo aroori kareen baa meesha fadhiya waxaan ka codsanaynaa inay noo soo kordhiyaan wixii gurmaday ay noo helayaan Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekh Absa Koronta Telefishinka madaxa banaanay Soomaaliland Space Channel gudaha magaalada Burco